الصوماليات ما عندنا ذكرى قيب قادنا أفريقيا نروح البلد معاد وهذا سويتي على تاي علايس كسارن dad bariis wax tartamay oo tababar iyo training ku jiray sababta kaliya ugu soo baxnay waxa community Soomaaliyeed jaalid Soomaaliyeed muslimiinta la kulmaysan safarkaas dheer oo sahlanayn ilaa iyo Stratford iyo dhaxaysa Southwell wax sahlan ma waa waqti dheer marka qiimaha iyo muhiimadda uu ugu fadhiyo inaan community-ga inay la kulmaan arkaan dhalinyarada iyo teamkuba waa wax loo baahan yahay inaan maanta la afurno afurkan quruxdan kala qayb qaadano oo ku faraxsanahay maashin assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh bismillah marka ugu horeysa waxaan igu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka xigta afurkan oo aadka u sharafta badnaa oo qiimaha badnaa boqolkiiba boqol waan iiga mahadcelinaynaa haddii aan ciyaartooydii waddanka Soomaaliya soo dhaweyntaana soo dhaweyseenna aad iyo aad ayaa ugu mahadsantihiin ilaahay ajir ha niga siiyo masaajidka Daarusalaam waa masaajid aad iyo aad u fiican aad iyo aad loo qiimo badan aniga maqribkan kaliya ayaa imaan salaadana ku tukaday dadkiisa iyo jamaacadiisa waa jamaaco aad iyo aad qiyaranimo iyo Soomaalinimo ee ka muuqato Allah u siyaadiyo ayaan leeyahay biri haween dambe ayaan ordayaa insha Allah gabadhana waxay ordaysaa biri duhurkii waxaan nagu sugaysaan waa magacii Soomaaliya iyo sharaftiisa iyo sumcadiisa inaan kor u qaadno hadduu Ilaahay yiraahdo mana ceebeen doono hadduu Ilaahay yiraahdo magaca Soomaaliyeed waxa uu soo halgameynay u soo dhidideynay subax iyo galab wuxuu ahaa magaca Soomaaliya sharaftiisa iyo sumcadiisa inaan kor u qaadno anagana hadduu Ilaahay yiraahdo kalaankeena waa ka soo bixi doonaa sidaan noo taageerteena boqolkiiba boqol waa ku mahadsantihiin UK sidana looga soo dhaweeyay meel kastaba aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay masaajidka Daarusalaamna maanta aad iyo aad ayuu nooga farxiyeen biri insha Allah waxaan jeclahay hadduu Ilaahay yiraahdo guusha oo soo hooyin doona hadduu Ilaahay yiraahdo in aad hormuud u noqon doontaan faatixada iyo salaadaas la tukanay daraadeed boqolkiiba boqol waan iimaad celinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh